عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري وإذا سلامالك سو أدونك دعالدي سأتك جوجتين وأنيقو أولاشين أدقون بليس دا أقول عسبتين سبسكرايب لايك شيرك إسارة دا إلسي جوجتين لايك إن شاء الله شيرك انت سأيان اسكو أغنهي marka inta kasoo gudbo akhyaaray maanta waxaan noo hayaa qisooyin baan noo hayaa shan qiso ayay ahaayeen laakiin waa noo kala jarjaraya waayo telefoonka ayaa igu xumeeyay ma qaadan kara ayaan u gartay maanta waxaan inoo soo deynaa cawada laba qiso hadduu ilaahay idmo marka inta kalena waa inoo soo deyn doona hadduu rabbi raali ka noqdo asxaabay nin Soomaali ah baa nin oo Sacuudiyaan oo taksiile ah baa meel wuxuu ka qaaday jidda u ka qaadayay deetana wuxuu weydiiyay wixii ugu yaabka badnaay intuu taksiilaha ahaay wixii ugu yaabka badnaay ayuu weydiiyay markuu weydiiyay wuxuu ku yiri waxa iigu yaab badnaay oo aan la yaabay waxay ahayd buu yiri maxay ahayday mar wuxuu yiri anoo taksiile aba wuxuu yiri niman af Palestine iyo maxal jira iyo afka oo isheeg Pakistan amal ku hadlayaan ayaa wuxuu yiri waxay idhaheen buu yiri Madiina naga qaad markana geey Madiinatu Makka u socdeen nimanka dan nimankii waxaan wada hadalno waa isfahmi weyni buu yiri ninkii ana English ma aqoon yiri in yaro safaarad كيمو يرما أخانا أن كير شقينا وحيرا صاير ججب صدي بويري أن سفارد وجوجي أن يرفهم يا بويري أن سفارد ميا أطلق ما أخانا حسس عمر على التحال لو قد وقعت كاد بويري نمك وانساق هذه مركا كيني أي جاري كدجن وكسحان ويري لعكت هذا كينا مركز مدحي لجلجان أفكودي يكو هالين مدحي بي لجلجان حن يروح أسوح عنا ما هن لعكت هذي لعكت السية وحيدهم بويري وحن كفهم بويري niyahow annaga lacag markuu horeyso inta soo qaadaysi baa waxaan kugu dhahnay dar ilaahay nagu qaad lacag ma haysanay dar ilaahay nagu qaad lacag ma haysanay marka dar ilaahay nagu qaad lacag ma haysana kelmadaas ayaan muxuu ahayd annaga markuu horeysaybo kugu dhahnay laakiin adaana na fahmin ninkii wuu yaabay أصحابتي نمن أهو تقصيلياش إسليهن وعي وروحي لأنك العكت نمك العكت كقات هذا وطن كله لتني من العكها سنين أدق وإسهر استاجين العكت يدسي العق ما هي العكت يدسي العق ما هي نعبار مركب مدة إسهر تاجناين أيو نكان نروح نسميه وحيري أوكي إن وإذن عفية أرض إسكبحة السجن وصابحة مال تجاسست استاجان أيو إماذي مركب ماشي إماذي ayaa waxa dhacday maxay ahayday waxay ku dhaheen nin boorso weyn jiidanayo oo libisan oo tay xiran oo boos aha wuxuu yiri taksiila taha elboorkan rabay elboorka gaarsiin waan soo qaaday buu yiri ninkii elboorkan keen ninkii wuxuu yiri markaan boorsada ugu riday meesha gaarigayga ayuu ku mashquulsanay ma sii danaynin buu yiri waa soo qaaday elboorkan geeyay buu yiri elboorka markaan geeyay ayaa wuxuu yiri meeqa waay markaas waxaan yiri aniga marka aad lacagta aad muxuu ahayd aan ku soo qaaday lacag imaad weydiin marka mitaki ma shidin oo saacadii ima u shaqeynayna laakiin arran waxa waa lacagta about maxal dhihi jiray 150 riyaal tii hore nimku cafiin waxay 250 riyaal bay ahayd ninkii markuu meesha geeyay lacag bashqad ku jirta ayuu soo taagay wuxuu ku yiri ha furin wuxuu yiri waan furayaa ha furin buu ku yiri waan furayaa buu yiri adimadu markay doodaan buu ninka furay bashqadi ninkan bashqada wuxuu u furay u boobsina wuxuu isleeyahay bashqada ever ah ayaa lagu dhiibay sidii kuwa hore camal kuwana kana hal iyo ever buu ku diray ayuu isleeyahay bashqada haduu furay lacag waxa uga soo baxday 2000 oo riyaal ah labadi tripkii hore nimanku uu cafiyay tripku ninkan qaadanayso sheega waa 400 oo riyaal marka lacag afar jibaar ku soo jibaarmaysa ama shan jibaar ku soo jibaarmaysa ayuu haystaa already ninkii wuu qoslay kii kalena wuu qoslay kii taksiilaha ahaa buu koor wuxuu ku yiri maxaad ku qosashay buu yiri waxaan ku qoslay buu yiri arintaas ay ugu dhacday niman baan qaaday oo afka in ishaga indida iyo waxaas Pakistaanida ku hadla markaan meeshay rabeen geeyeen waxay dhaheen buu yiri lacag ma haysan dar ilaahay nagu qaad markaan muddo is hortaagneenna waan u cafiyay
waan sadaqaystay lacagti waana kasoo tagay tagista aan kasoo tagayna adaan ku qaaday adiga aan ku qaadayna adna lacagtan ayaad isiisay marka farxad ayaan la qoslay maadaama aad wax sadaqaysatay adigana inta aad sadaqaysatay laba jibaarkeeda ayaad helaysaa marka sadaqadan waxay ii ahayd sadaqa aanan soo daahin abaalmarinteedii ama jisideedii ayay ii noqotay buu yiri maxay ahayday maanta oo markii aan meesha kasoo tagayay xanaaqi ahay iyo murugada i haysay farxad ayuu ilaahay iigu bedelay marka aad baad u mahadsan tahay waa farxadaas waxaan la qoslahay buu yiri balse adi maxaad ku qosashay buu yiri ani waxaan ku qoslay buu yiri waligay gaari yar oo tagaasistan yaryariiska ah waligay ma raacin lamaasiin ayaan raaci jiray buu yiri lacagtan waa lacagtan lamaasiinka ku raaci jiray laakiin gaarigaaga markan waa liisoo ka istaajiyay iyo hadalkii oo iga soo baxay iyo wuxuu yiri gaarigaaga inaan fiirinay markaad boorsooyinka iyo xareynaysa ma arkaysa haa wuxuu yiri ma rabin inaan raaca laakiin qadaadka inta lii qabta gaariga loogu soo turo raac baa la dhahay buu yiri waa la ilaahday waxa ilaahadayna ma arkeen buu yiri geesahaygan eeg marka cajiib waa lacagta adigu ayuu ilaahay ku qoray buu yiri waa qadarta rabbi waa wuxuu rabbiga subxaanahu wa ta'ala ku qoray lacagtaada qaada assalaamu calaykum sidii bay ku kala tageen labada nin qisada labaad aan inuu boobsiya because maanta telefoonka iga halaysan qisada labaad waxay ahayd gabar baa laba reer oo daris ah baa muxuu ahay to balakoonka meesha banaanka dharka lagu warwartaa iyo gabar subax walba dhar bay dhaqdaa meeshay ku wartaa dhar bay dhaqdaa meeshay ku wartaa naagtan kale dariska daaqada un bay ka eegtaa dharka wasaq u la yeeshaa daaqaday ka eegtaa subax walba gabadhan dharka ay dhaqdo wasaq u la yeeshaa markuu dharka wasaq la yeeshaa ninkeeda su'aal ku celisaa waxay tiri hebelow haa gabadhan dariskeena dharka ay dhaqata maalin walba ma wasaq baa wuxuu gacmahay laadahay areebasana markaas wuxuu yidhaa iska daa waa qof bilo aadan iska daa wuxuu iska daa qof bilo aadan uu ku hay maalinka dambe ayaa waxaa dhacday ninkii ayadoo hurdaysa ayuu baxay muxuu tagay daaqadii buu kaliingareeyey waa soo kaliingareeyey nadiifuu kasoo dhigay markuu soo kaliingareeyey uu soo nadiifiyey ayuu waaga baryay ayadu way soo kacday haddii aragtay gabadhii dhar meesha ku warwaranaysa dharkii gabadha ay warwaraysa waa nadiif markaas waxay tiri hebelow haa dharkii gabadha ay dhaqi jirtay wasaq buu ahaani jiray gacmaha waxba kama qaban karta miya ahaan dhihi jiree soo kan dharkii nadiifka ah oo wax walba ay dhagdhag ka dhigta ma ahan maanta markaas wuxuu yidhi adduunku weligaa intaad nooshaha qofka bilo aadanka liiskama complain gareeyo waxna lagama sheega sababtoo tahay gabadhan ma ahayn dhibaatada waa guriganaga daaqadanada muraayadeeda ayaa wasaq ahayd adigana waad garan weysay maalin walbana gabadhaas ayaad karbaash la dhacaysay oo aad dulminaysay oo dulan iyo wax xun aad ku waday marka saas awgeed saaka intaad hurdaysay ayaan kacay daaqadina soo kaliin gareeyay waayo daaqadanadii baa kaliin ah taas waa gabadha dharkeedina aad u arkaysa si kaliir ah marka asxaabay qisadan dambana waxaysan tahay tii hore waxay ahayd sadaqada inay sadaqada wad iyo geeri furato ee tahay sadaqada aad inay u wacan tahay meeshaad wax ka soo bixisina wax ka badan inuu ilaahay kuu soo gelinayo naxariista rabbina inuu ilaahay ku siinayo gurigaagii ubadkaagana ilaahay kugu xifdinayo tan dambase waxay ka dhigan tahay way ka bedelan tahay waxay uga bedelan tahay qof wada socdaan arkaynaa wadada kusoo gala emergency qofka maskaxi ahaantiisa dhib ma haystay ma okay buu ahay ma qof xanuunsan buu ahay muxuu ahay ma dhahna laakiin raadi way waxaan leenahay ma waalan ya qofkan muxuu waxa u sameeyay waa qof waala indhaha alla ku tir alla saas ku wasi habaareyna dhibaataan u sii geyneynaa meesha aan dhihi lahaynay qofkan wuxuu yahay lama oga aan isdhihi lahaynay anaga waa sii dhibaateynayna asxaabay marka tan kalena wax aadan hubsanin inaanan dadka aanan lagu cambaareynin ama aanan korka laga saarin ayay daliil u tahay waayo hubsiina waxaa la yidhi hal geel baa la siistaa waxaadan hubsaninna ma wanaagsana baa la yidhi marka asxaabey cajalada maanta intaas ayaan idinkiiga tegayaa intaan hawada ku kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha allah habeen dambe markay noo tahay 8 oo kale ayaan qisada kale idin soo gelin doonaa hadduu rabbi raalli ka noqdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu